Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaad kanaalka Afifa Warsame. Maanta waxaa rabaa inaan idinla wadaago buugaaneeto. Buuggaan waxaa la yiraahdaa Thinking Fast and Slow. Waxaa qoray la yiraahdo Daniel Kahneman. Xaqiiqdii waa buug aad u muhiim ah, waana kugula tali lahay in aad adiguna akhriso. Buugaaneeto waxa uu ka kooban yahay 5 qaybood ayuu ka kooban yahay. Qayb kastana waxayna baraysaa cashir muhiim ah. Bal intaanan horta cashirada guud ee buuggaani ku jira aan si guud aanan u dulmarin, aan marka hore aan isku dayno in aan maaragtay aan 5 qayb buuggaan uu ka kooban yahay aan qayb aan u soo khulaaseeyo. qaybta koowaad ee buuggan waxay ku saabsan tahay wax la yiraahdo labada system, system koowaad iyo systemka labaad. Qoraagan waxa uu leeyahay qofka bini'aadanka ah maskaxdiisa ama qofka bini'aadankaasi ahaantiisa wuxuu ka kooban yahay laba system. waxa marka uu systemkan isticmaalay kaliya waxa uu rabo qoraagu in uu maaragtay noo fududeeyo in aan xasuusano labada qaybood ee aan ka koobanahay. Marka erayadan system 1ka ah ama systemka koowaad iyo systemka labaad waa eraya si artificial ah oo soo qaatay. Aan u imaano bal systemka koowaad iyo systemka labaad waxay kala yihiin. Systemka koowaad qoraagu waxa uu yiri qofka bini'aadanka wuxuu ka kooban yahay system ku saabsan waxyaabaha aan dadaalka u baahnayn. System iska automatic ah oo markii aad rabto inaad luqadda hadda aniga aan ku hadlayo kale waa luqadan aqaano soo maahan inaa eray xasuusto uma baahnayn. Systemka koowaad ama mas'uulka ah luqadda aad taqaano sababtoo ah erayadaada iyo wixii maaragtay luqaddaas ku saabsanaa maskaxdaada ay galeen. systemka koowaad waxa uu mas'uul ka yahay wax kastoo aad ku celceliso. Tusaale hadda suuqa aad inaad guriga u soo laabato uma baahnid in aad tiraahdo xagaha maraa luuqa maraa ma dhunsanaha inaad tiraahdo oo guriga mar walba waa taqaanaa. Marka arrintaasna waxaa ku lug leh systemka koowaad. Sidoo kale marka haddaad qof jeclaanayso systemka koowaad ku lug leh. Haddaad qof hore u taqaanid inta aragtid aqoohaysid leeyahay qofkaas waa qofkaas hore ka dhayso systemka koowaad ku lug leh. Sidoo kale marka qofku naxo ficilka uu sameynayo iyo ma aragtay falcelinta uu sameynayo systemka koowaad ku lug leh. systemka koowaad waa system markasta aan wax fikir ah aan u baahnayn, wax didaal ah mase juhdi ah aan u baahnayn oo hore falcelin mase ficilka ka sameeya asoon fikirin si hadan uu iskaga sameeya wax kasta. Systemka labaadna waa systemka u baahan markasta miir qabka oo hadaa maanta aad meelaadan joogi jirin waxaa leedahay meeshaan xagee maraa ama dhuma markaas aad dhumid iyo ka fikirayso in aad wadada saxda ku taagan tahay waa systemka labaad. Sidoo kale markaad luqad cusub aad baranayso oo aad rabto inaad kontaroosho ereyga aad dhahayso iyo midka aadan dhahayn waxaad ku xiran tahay mas'uulka ah systemka labaad. Haddii lagu yiraahdo laba lagu daray 4 hore ka leedahay systemka koowaad arrintaas ku lug leh. Laakiin haddii lagu yiraahdo 500 lagu dhufto 600 haddii lagu yiraahdo tan way fududahay markaas systemka labaad ayay arrintaas aaday. Haddaad rabto inaad wax ka fikirto wax kastoo ka fikirado u baahan mase wax kastoo u baahan si miir leh inaad u samayso systemka labaad ayaa ku lug leh. Systemka labaad mar walba waa systemka mase waxaan ugu kalifa in aan wax necbaano mase inaan wax ka shakino. Systemka koowaad waa systemka ku lug leh in dhaqsi wax la aamino dhaqsi wax la jeclaado. Laakiin systemka labaad waa systemka shakiga keena nacaybka keena sababtoo ah markaad qof maanta iska jeclaato ma maamuli kartid waxa aad ku jeclaanayso dareenkaagaas ma maamuli kartid. Laakiin haddaad qof nacbaanaysa sababaad ku nacbaanaysa sababtaas waxaas ugu sameeyay kana ugu sameeyay siyeel waxaas waa xasuusnaanaysa. Sidaas darteed systemka labaad arrintaas ka mas'uul. Systemka labaad waa system mar walba raba in uu wax eedeeyo mase wax criticize gareeyo mase uu isku dayo wax qaldan inuu soo helo. Waa system ay u sahlan tahay in uu shaki abuuro. Marka waxaa laga yaabaa inaad ku fikirayso inaan ma aragtay aad systemka labaad kaliya uu ku shaqeeyo aad mar walba si rational ama si macquul gal ah u fikirto mararka qaar wax kasta markaad sameynayso si miira inaad ma aragtay u samayso u malaysa. Laakiin systemka labaad waa system wahsi badan oo mararka qaar waxaa laga yaabaa in uu wax kasta systemka koowaad u dhaafo oo systemka koowaadna uu wax kasta go'aansado si fudud. Aan u imaano qaybta labaad ee buugga. Qaybta labaad ee buugga waxa ay ku saabsan tahay waxaan la yiraahdo biaseska mase xashada qofka uu sameynayo. Qofku markuu rabo maanta inuu cilmi baaris sameeyo mase inuu wax ogaado mar walba wuxuu sameynayaa macnaha markaan ku dhahay wuxuu sameynayaa soo qaadanaya
warbixinta ugu dhow ee uu heli karo, warbixinta u sahlan, yacni waxyaabaha u dhadhow oo aan dhibaatada u keenayn u sahlan, yacni halkan u yaala oo markuu Google-ka ku qoro horey oo ka helayo, mise markuu banaanka aado oo hore qof uga maqlayo ayuu qofku qaadanaa. Sidoo kale qaybtan waxay ku saabsan tahay marka aan rabno inaan wax baarno kaliya waxaan maqalnaa waxa aan rabno inaan maqalno waxyaabaha aaminaadeena ku jaango anaan maqalnaa, yacni ma rabno in aan maqalno wax aaminaadeena kasoo horjeeda. waxyaabaha aaminaadeena kasoo horjeedana ma qaadana, mana aaminayno, xitaa ma tixgelinayno, sababtoo ah dad eex qaba ayaana eexaa nagu jirto oo waxa anaku aaleynaha bis ayaa muhiim noo ah. Sidoo kale qaybtan waxay ka hadlaysaa si markuu qof kale u hadlaayo, mararka qaar markuu qof kale hadlo si ay noo saameynayso, oo haddaan maanta anigu aan wax kuu sheego waxaa laga yaabaa inaa waxaa saameyn kugu yeelato, mase adig haddaa waxay sheegto inay saameyn kugu yeelato. Tusaale waxaan ku leeyahay gacantaana way xanuunaysaa, way weyntahay, ma weyno aan ku leeyahay waa fiirinahaa way weyntaha aa leedahay, waxay kula noqonaya inay weyntaha laakiin ma weyno aniga afka kuu galshay. waxaan ku leeyahay ishaadaas bidix way yar tahay maxaa ka qaldan aan ku leeyahay, waxaa leedahay ma aqaani, hadhow haddana waxaa kule ishu maku xanuune ma aqaani yale, laakiin marka dambe waxaa laga yaabaa inay aaminto inay ku xanuunaydo. Marka qof kasta oo bini'aadan waxyaabaha mararka qaar saameeya ayaa waxay tahay eexdiisa iyo sidoo kale waxyaabaha dadka kale ay u tilmaameen. qaybta saddexaad ee buuggan waxa ay ku saabsan tahay isku kalsoonaanta mararka qaar annaka nagu jirto. waxaa laga yaabaa waxaan ognahay inaan niraahno aan u malayno inaan wax badan ognahay, balse waxaa u malaynaa mararka qaar waxa aan ognahay in ay sax yihiin sababtoo isku kalsoonaanta naga badan. laakiin sida saxda ah waxa ay tahay waxa adiga aa ogtahay aa u malaysay inaa ogtahay ma ogid, mise waxa adiga aa u malayso oo aad ogtahay u malaysay inay badan yihiin waxaas wax badan ma ah, yacni waxyaabo ka badan oo aadan ogeynaa jiro, laakiin adiga aaminsan inaa wax badan arrintan aad ka ogtahay. mar walba arrin kaa dahsoonaa jirta, laakiin adiga maadaama aad isku kalsoon tahay waxaa moodaa inaysan waxyaabo kaa dahsooneyn. sidoo kale kalsoonaantaas daraaddeed mararka qaar waxaan iska dhignaa dad wax saadaalinaya oo waxaan nidhahnaa waxaasi waxaasaa dhici doona, waxaasi waxaasa saas yeeli doona. sidoo kale waxaan nidhahnaa dhacda hadda dhacdaan waxaan leenahay dhacdadaas waa ogaa inay dhacaydo, waa saadaaliyay, horaan u saadaaliyay. tusaale ahaan dad qaara waxay leeyihiin Russia inay Ukraine galayso horaan u ogaa ayay leeyihiin, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan horey u ogeyn oo shalay 2021 qofna ma xaqiijin karin oo ma dhihi karin wallahi cadiim Russia Ukraine ay galaysaa, qofna warkaasi kuma adkaysan karin. xitaa qofkaas hadday warkaas ku adkaysato yacni uma samayn karin si kalsoonaan ah kor qofna uma dhihi karin. dadka kor u dhihi kara macquul dad waxyaabo goonay mase siro og inay yihiin, laakiin qof anaka dadkeenan caadiga ka mid ah qofna wax yacni go'aan kama gaari kara. laakiin maanta dad badanaa waxay leeyihiin horaan ka ogaa inay Russia Ukraine galayso, horaan ka ogaa COVID-19 inuu halkan soo gaaray, horaan ka ogaa inay waxaas saas u dhacaya, yacni horaan ka saadaaliyay arrinta way nagu badan tahay. qaybta afaraad ee buuggan waxa ay ku saabsan tahay sida qaababka aan doorashooyinka u sameyno, oo mararka qaar markaan doorasho sameynayna waxaa mar walba go'daansha dhacdada annaka aan taaganahay xiriirka ay la leedahay halkii awal aan joognay. yacni waxa maanta aan nagu dhacay ma ka xun yihiin sidii shalay aan ahayn, waxa maanta nagu dhacay ma ka wanaagsan yihiin sidii shalay aan ahayn. yacni markasta dhahayna waa qasaarna mise waa faa'iidna, waxaan fiirinaynaa waxa aan helnay iyo wixii aan hore u haysanaa isla barbar dhigaynaa, waxa aan dhuminay iyo wixii aan hore u haysanaa isla barbar dhigaynaa. inta badanna waxaa laga yaabaa in aan buunbuunino waxyaabaha xun mise qasaaraha inaan buunbuunino. tusaale ahaan haddii maanta ay qasaaro yar ay kusoo gaarto waxaa leedahay oo waa qasaare wax badana iga halaabo ayaa leedahay. yacni inta badan waxaa saameynta nagu leh waxa xun ayaa saameynta nagu leh. haddaa maanta aad faa'iido qofna uma sheegaysid inaad faa'iidana nooma sheegaysid, laakiinse haddaad maanta qasaarto qof kastaa u sheegaysaa, hadday maanta wax xun kugu dhacaan qof kastaa u sheegaysaa. taasina waxa ay nagu sababaysaa markaa doorasho sameynayno, yacni wax kasta doorashadeenna waxa ay ku salaysan tahay xumaan intee la eg ayaan waxaan kala kulmo ayay ku salaysan tahay. qaybta ugu dambeysay shanaad waxay ku saabsan tahay qofka bini'aadanka inuu laba naf leeyahay, yacni sida qoraagan u dhig, yacni naf dhibaatada ay ku dhacday
dhacda iyo naf wax xasuusata mar walbana waxa go'aamadeena qaabeeyaa waxa ay tahay nafta wax xasuusata naftii dhibaatada ku dhacday mise farxadan soo wajahda yacni ma ahan yacni waxaan marka aad leedahay way xun yihiin mise way wanaagsan yihiin waxa ay ku salaynaysaa sida aad u xasuusato tusaale shalay qof baa hadal yar ku tiri hadalkii ma weyneyn wax yar uu ahay wax qof ka xanaaqi karta ma ahayn mise ha laga xanaaqo wax la buunbuuni kara ma ahayn naftaadan weli way xasuusataa sidaas darteed waxaa laga yaabaa in hadalkaas aad xasuusato darteed aad ma aragto qofkaas aad weli col ula tahay sidoo kale waxaa laga yaabaa qof aad dhibaato weyn kuu geysatay waa dhibaato weyn yacni ma yaro ma xasuusatid waa ilowday laakiin waxaa laga yaabaa iloobidaas aa ilowday in ay bedasho qaabka qofkan aa ula dhaqmi lahayd marka mar walba waxa wax go'aamiya ma ahan nafta waxaan dhibaatadan martay mase rafaadkan soo marta mase farxadan soo marta ay wax ay tahay nafta wax xasuusata yacni waxaan intee la egaad xasuusan tahay haddaad xasuusan tahay waxaan wax yar aad ka xasuusan tahay yacni waxaas muhiim kuulama lahaanaya laakiin haddaad waxaan weli sidii u xasuusan tahay ahmiyad weyn ay kula lahaanaya markastaad go-aan gaaraysa waxa ay ku xiran tahay waxaan intee aad ka xasuusataa marka shantaas qayba buuggaani ku saabsan yahay waxa buuggaani anaka noo sheegaya waxa ay tahay qaabka ay tahay in aan u fikirno inta badan waxaan aaminsanahay marka aan fikirayno mise doorasho aan sameynayno mise go-aan aan gaarayno in anagu aan go-aankii doorashada gaarano anagoo qofna aysan na saameyn ayadoo systemka koowaad uusan nagu lug lahayn ayadoo ma aragtay wax eexa aysan jirin ayadoo isku kalsoonaani aysan jirin ayadoo khasaare la xasuusan yahay aysan jirin ayadoo naftii la xasuusnaa wax xasuusanaysa yacni aysan naga awood badnayn yacni sidaasaan aaminsana laakiin buuggan waxa uu noo sheegaa markasta oo aan go-aan qaadanayno wax ayaa jiro nagu lug leh mase systemka koowaad ha noqdo oo waxaan anagoon ka fikirinba systemka koowaad hore go-aan ha uga gaaro mise waxaan si eexa aan u sameyno mise waxaana qof kale uu nagu dhaliyo mise isku kalsoonaanteena darteeda yacni markastaan go-aan gaarayno go-aankeena waa lagu qasan yahay sidoo kale waxa buuggan aan ka baranaynaa waxa ay tahay in markaan fikirayna aan isku dayno systemka labaad in aan active ka dhigno saan idin soo sheego systemka labaad waa system wehsiid badan aan rabin inuu juhdi baxsho systemka labaadne waxa uu sameeyaa qofka bini'aadanka ah waxa uu ka cunaa enerjiga ugu badan oo qofka bini'aadanka ka cunaa maanta maagto wax sonkor ah oo badan aad cunto oo aad tiraahdo waa fikira aad tiraahdo sonkortaas waxaa laga yaabaa kaliya systemka labaad in uu maaragta qaato sababtoo ah systemka labaad markaa isticmaalaysa fikir uu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay diirad saar uu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay miirqab uu u baahan yahay sidaas la ajligeed systemka labaad maadaama enerjiga ugu badan iyo tamarta ugu badan uu qaato waa system weesi badan marka waxaa isku daydaa markastaad go-aan gaarayso in aad systemkaaga labaad aad active ka dhigto sidoo kale haddaad cilmi baaris sameynayso mase aad wax kala go-aan ka gaarayso isku day waxa aad rabto in aad maqasho inaadan diirad saarin laakiin aad diirad saarto waxyaabaha kale ee suurtagalka ah waxaa laga yaabaa maanta waxaa lagu yiri qofaa dhintaa lagu yiri yacni si guud waxaad ku fikiraysaa aad leedahay qofkaasi ma dhimana u malayna qof kale inuu yahay u malayna ilaahu qof kale ka dhig yacni adaa waxa isku qancinaysid dadkaasi inay si qaldan hadal qaldan soo tabiyeen laga yaabaa qofkaas inuusan dhimana laga yaabaa adaa isku qancinaysa sababtoo wax disoonan sii ahaa jiro oo naftaada mararka qaar mase maskaxdaada mararka qaar waxaa jiro mararka qaar ay wax isku qancinayso oo waxay diiday xaqiiqada iyo waxa ay aaminsaneed ayaa iska soo horjeedo sidaas darteed waxay rabtaa inay waxyaabahaas isku maaj garayso mase isku habaysay rabtaa marka waxay isku dayay inay meesha ka saarto wixii ma aragta la sheego xaqiiqada ahay sidaas darteed waxay soo jeedin sameynaysaa wax ku saabsan waxa ay jeclaad markasto adiga aad go-aan gaarayso hadiirad saarin waxa aad rabto in aad maqasho laakiin inaad isku daydo xaa kaloo suurtagal noqon kara xaa kaloo imaan kara yacni inaad ka fikirto markii ay maaragtay waxyaaba noocaas aad sameynayso sidoo kale marka aad rabto inaad wax ogaato cilmi baaris aad sameynayso inaadan aaminin inaad wax badan og tahay oo aadan isdhihin waxaan intii loogu talagalay waa ogta sababtoo bili-aadan horta baa tahay maskaxdaadana ma lahan capacity ay wax walba yacni ma lahan mug ay wax walba ku ogaato maskaxdaada ma lahan marka waxaa isku dayda mar walba inaad ogaato in
cilmigan wax waad ka taqaanaa mawduucan wax waa ka taqaanaa laakiin waxaa jiro qayb kale oo kaa maqanaada jiro mase aadan fahmin mase markii la rabo in aad fahanto aa ku samayso kis yariisahoo maaragta kuu diyaarsaneed mase kistii aad heli karta in aad qaadatay sidoo kale marka aad wax baarayso waa inaadan isku dayin waxyaabaha aad heli karto mise waxyaabaha ku dhow inaadan diirad saarin yacni aad isku daydo waxaan ka fog inaad raadiso mararka qaar inaad isku daydo inaad hesho wax aaminaadaada kasoo horjeedo inaad hesho marka intaasina waa intaa buuggaa ka baranaynay iyo buuggaan inta oo ku saabsanaa kastoo waxaa moodaa in uu weyn yahay sayskiisa laakiinse waa buug inta aad aqrinayso midba mid kuu dhiiba yani mar walba aa isleedahay ka dabagaar sidoo kale buuggan dhibaatada kalaa ku qabi kartaa waxaa laga yaabaa ay tahay luuqada ku qoran saaidoo isticmaala statisticska iyo sidoo kale hababka researchiga loo sameeyo iyo sidoo kale waxyaaba psychology ku saabsan ayuu maaragtay isticmaal marka haddaadan mawduucyadaas waxyaaba fikira aadan ka haysan mase buugan buugaag u dhigma aadan horey u aqrin waxaa laga yaabaa in ay kugu yara adkaatay inaad fahanto sidoo kale yacni mida kale buugan uga helaa waxa ay tahay waxa uu ku siinaa yacni markuu mawduuc ku sheego si kuu sharaxo wuxuu ku siinaa yacni dhowr cilmi baaris oo la xiriirta oo buuggan yacni wuxuu ka kooban yahay markii laga soo tago qoraaga markii laga soo tago kumanaan qofood oo kale cilmi baaris ay samaysa ayaa buuggaani ku jira taasoo ma aragtay aad keenaysa yacni dooda mase nuxurka buuggan ku jiro aad keenayso inay aqriso uu kugula tali lahay adigana aad cashir badan saad uga barato waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu